tuurin mooska bislaado. Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meeshaan waxaan oo yaala moos bislaaday. Mooska bislaadeen waxaan ku sameynaynaa ma tuurayno. Waxaan ku sameynaynaa baana kaake. 3 xabo ukuna, qaado bakina, daarta carfis oo ku darsan kartaa, heela ku darsan kartaa. burkina waa kanaan ku cabiranaya aniga 3diisa iyo koob caana ah. insha Allah intaas waan isku sameynaynaa. wixii ka soo baxay meesha waa isla wada arkay. hadday noo bilaabatay 3 xabo mooskan fiiqay. waxaan ku riday baaquligii, waan jijabinayaa si fiican. fargeetadan ku jijibinayaa. markuu aad u jijabo isdhex kala sida mishaari oo kala noqdo waxaan ku daraynaa caanahan ku daraynaa. hadda wuu isdhex galay maasha Allah, si fiican uu iskugu dhex galay, wuu jijabay. markuu aad iskugu milmo waxaan ku daraynaa ukuntii. 3 xabo ukunaan ku daray. ukuntii haddana xoogo isku qasaynaa inay isbartaan waa isdhex galaan. markay isdhex galaan maasha Allah, si fiican iskugu dhex galaan, haddana waxaan ku darsanaynaa caanihii maasha Allah. galaas caana, heel yar, 5 xabo heelan tumay waa budadiisa. intaas yar haddana isku laaqaysaa. carfisaan ku darsaday qaadada yar oo shaaha ay lagu qasto. baking powder waaye, 1 qaado weyn, qaadada cuntada lagu cunaa. aniga baking carfisada waan jeclahay iyo heelkaba. mid kamid ah ku darsan kartaa labadooda. ukunta shiirkeeda necbanahay aniga. xurbankii aan u qaatay had xurbin la iska dheh. waan isdhex geliyay. burkii aan ku darayaa. waxaan isticmaalaa aniga geedkan burka aan hadda ku dhex jiro waxaa ku qoran 100 miligram ku qoran. 3diisa isticmaalayaa. 100 waaye. galaas caana, 3 xabo ukun, 3 xabo moos. intaas jag ay isku noqonay. biibina kaama noqonayo, mana ka adkaanayo, dhexdhexaad ku noqonayo maasha Allah. waan isdhex geliyay si fiican isku dhex geliyay. saasoo noo noqday way dhamaatay sheekada. inaga dhaqo. burtaada soo qaado. dabkaaga shido. dabkana waxaa fiican inaad iska gaabisid. dab dheer hadda ku sameysid dhaqsuu gubanayaa, qaraarna wuu noqonayaa maadaama moos ku jiro. laakiin dabka hadda u gaabisid maasha Allah wuu ku noqonayaa. wax isbedelna ma lahan. muhiimada dabka gaaban waaye inuu ku noqonayaa jaalo qurux badan maasha Allah. Allah wixii aragiis ku deeqo uurkaagana u roon. asuu jaalo u noqdo maasha Allah qurux. waxaad doontida ku cuni kartaa, bacaana ku cuni kartaa, malaba ku cuni kartaa. sonkor kuma jirto maadaama mooska 3 xabo uu yahay. aad u badan yahay, wuu macaan yahay. saliidna laguma daro, saliidna laguma dubo. quraac ku noqonaa, casriyo ku noqonaa, casho ku noqonaa. dhalinyarada waxaan dhihi lahaa baraabeeya. wax kasta waa sameyn kartiin. gabdhaha in loo faro ma ahan. hala baroobeeyo, hala sameeyo. wax yaroo fudud waaye oo maasha Allah fitamiin ah. marka wiilashayda meel kastoo joogtiin dal iyo dibid waxaan dhihi lahaa baroobeeya idin dhihi lahaa. cimri dheer iyo caafimaad aan ugu rajeynayaa dhamaanteena. soo dhawaada janalkiina waaye. sii share gareeya. waxyaabo badan oo soo socda insha Allah waan kala faa'iidi doonaa biidnillah. aan waa idinka faa'iidayaa, anigana waa iga faa'iidi doontiin biidnillah. marka waxaan idin leeyahay dhamaantiina soo dhawaada. meel kastoo joogtiin waa mahadsantihiin. inta igu soo biirtay subscribe-ka soo siisayna aad ay u mahadsantihiin. aniga xabadeyda jikada ku cunaaya, haddaan baroobeynaya maadaama ila daawanayseen, ila qasayseen, ila dubayseen. haddana cunitaanka inaa idin cuno waay aniga aadayna u macaan tahay maasha Allah. soo dhawaada. caafimaad iyo cimri dheer idin wada rajeynaa. mar walba waxaa idin leeyahay soo dhawaada. idinkana soo dhaweeya, sii share gareeya. wax kala soo socdo insha Allah. khayr caafimaad idin rajeynaa dhamaantiina.
انت حنوسان الله عافية انت عافمات قبتنا الله أزايدين انت لمتين الله ونحريستو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.